dhaqdhaqaaqa xuquuqda hadalka xuquuqda jawaab celinta oo la yiraahdo right to reply inuu qofku xaq u leeyahay inuu jawaab celiyo haddii lagu gafo sumcadiisa iyo karamkiisa maanta waxaan idinku yeeray shirka jaraad waxa weeye inaan ka jawaabo hadal ka soo yeeray maayarka magaalada iyo xildhibaano la socday isaga xuquuqda waa right to reply waxa la yiri Soomaalidu dhaqan waxay u laahan jirtay xoolo jirtay hal magac dhabe kurkursatay ama kacday baa loo leeyahay dii mar lagu magac dhabo ama wad kurkursan ama wad kici marka aan waa kacay maanta كل ما أفلقات بدن جيسن معي مرة بينان قصته من الربينا أنا نبغى در هرسة النقطة وأنا رأيت دوينه كعة دول كيني ولا بوبي هاي أنا رأيت دوينه حل حساسية من كتير ناية مارة تقوليها قرط أنا رأيت هدي سيد غير لسانه تقول كده تسارن لا برسا برجيسن اللغة مصدرين إن رأيت هذا برسا من اللغة ديلا إن هو حي رأيته وأنا يوم مسؤول قررنا عن تذكر كل فوقيه وقبضه مرنا بدي أرومه تانا وحوي مايركا يعدي تيفي دراسة يستاهل أيها كمسؤولة دعوة عدولة لماذا سوق عليه يخرج جمهورية سومالان كلاب تسيطة ينجبادة يوم تقانا كعنت تدوينها والنصيب دارو ماير دقمه ودوينيسي يدولة ديسي سودرية وكعنية ماير قاني أدوي واي وحوار رمرس ولا وحوار هذا الكتركتينا oo ma taqaana aan sali raatoona line oo xan ah waxana waa wax jira maayirka hadalo kuturkuteena oo beena oo aan sali raatoona line ayuu ku hadlay inta badan hal qodob oo aan warqad u qoray baa jiray warqadana sida ahayd uga jawaabay iyadan cadeynteedii aan ahay dhulkan lee waa la bixinayaa horta nasiib daraa jirtay aqoontu qofku inay hagto ayaa muhiim ah iyo garashadu xeerka dhulka waxaa lagu maamulaa xeer 17 baa lagu maamulaa xeer 17 oo 2000 soo baxay xeerkaasi maam bixin dhulka bixintiisa laba qol iska leh hadii uu yahay dhulkan la qorsheeyo beeraan la qorsheynayo xeerka waxa iska leh gudida fulinta ee dawladda hoose gudida fulinta dawladda hoose waayo gudida fulinta dawladda hoose waa maayarka maayar xigeenka iyo xogeyaha saddexdaas wada saxiixay bixinta dhulka tan kale ee dhulka danta guud ee dawladdu leedahay waxa iska la bixinteeda waan cid labaad ku labayn gacan yareeyal mooyaan marka uu golaado lagu bixiya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qof kale dhul bixin kara aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma jira haduu leeyahay maayirku dadweyne kaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xil xasaasi xilkii uu ka dagayay la gaadho December buu dagayay dhulkiina uu boobin iska celiya isaga jirtaa waa isaga madaxweynaha meel barsaab ka soo gala male saaxiibkay Ramaax baa haday Ramaax barsaabkii xil ka bedelay برساب واحد بدن قبل كقبتوي برساب تاريخ كله ويا شغلة runtii halkan annaga iminka saameyn uu nagu leeyahay de ma jirto gobolka Togdheer baa loo diray anigu markuu iga tirsaday la sool iga soo tirsaday dabadeed waxa la keenay Togdheer buu ka shaqeeyaa laakiin Ramaax de boor ma iman kara haduu boor ma yahay Ramaax waa soo galay aadar meesha ma qabato haduu boor ma yimaadaan wada qadeena dhul bay iibinayaan de aadar meesha ma qabato dhulka hadii dhulka la qorsheynayo yahayna dawladda hoose bixisa hadii dhul xafiis dawladeed kan aan fadhino yahayna de adeer madaxweynuhu baa bixin kara wala Ramaax wala aniga hadii loo baahdo soo jeedin oo sameyn karayna soo jeedin arinta nooca markaanu aragnay madaxweyne anagoo baahida sida qabna waxaan rabnaa dhulka inaan loogu bedelo taa oo noo ogolaatid madaxweynaha dabeedna arinta process guddi wasiiraha baa jiro sharcigu sheegayo wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha oo ay wasiirka howlaha guud gudida wasiirada dabeedna eegaya wasaaradda howlaha guud baa la geenaya gudida qandaraasyada maraysa oo dadka ogaanaya wax procedure dheer weeye wax qof sheenay Ramaax intay qol hoos ka xidhan saxiix karaan ama Ramaax maanta wuxuu noogu yimid maayirkii magaalada Boorama ka yimid Ingiriiska anigii maayirka qadeynay kala bayd buu yimi isagii nin xildhibaan oo indhay dhaliila dabeedna nala soo hadlay maayir xigeen kula soo hadlay waan qadeynayna way ka soo gaadhay suuga saasuu noogu yimid waxa ka tashanay maanta واسكو غاديني halkan aan wada fadhiisanay Saleebaan oo maayirkii hore la bedelay malaha oo aad looga baqay baa noo yimi shaki baa abuurmay maayirku uu shaki xilka laga qaday jiray intaan bay dabeedna uu qayliyay ilaa madaxweyne xigeen ilaa cid walba telefoon buu diray wuxuu yiri dhul baa la boobay dabeedna TV-du istaagay wuxuu ku hadlay wada aragteen dhulkan la leeyahay oo yiri waraaq baan hayaa la isoo qoro wada bixi leeyahay
dhulkaas waxaa iska leh cabdulaahi diiriye boqore nin la yidhaha leh sharcigiisa waa kaa waa ninka dhalinyaradaad garanaysaa malaa sakariya aabihii ayaa dhulkaa la siiyey muddadii la siiyeyna waad arkaysaan waa tan taariikhdii la siiyeyna waa taa dee amanka maxsano waa 90skii ayaa la siiyey waa taa sharcigii lagu siiyey halkaa waxaa weeye canshuurtuu bixiyey taa waxaa weeye dacwad baa laysku qabsaday dhulkaa inuu leeyahay inaanu lahayn maxkamaddii racfaanka waa kaa guddoomiyadii Idris Faarax Muuse wuxuu qoray dowladda hoose xogii fulintii dowladda hoose muumin ayuu ku yidhi dhulka documentka inuu sax yahay isoo cadee muumin warqad buu kaga jawaabay wuxuu yidhi guddoomiye waxaan halkan kugu caddaynaa in documentka aad ii soo weydiisay uu yahay mid sax ah waxa kale hadal tiro mid sax ah inta naga qosaysa ninka qoray waayo xogayaha fulinta dowladda hoose ee Boorame muumin anigu waxaan u aqaanin nin odaya waayeela eeda badan aan tuug ahayn shaqo badan intuu meesha joogay xilka waa laga qaadaa waana la iska qaadaa waxa laga qaadayna waan garanayaayo waxa odaygu aad ma aragtay gacanta umu hayn maayarka intaan baahid maayarka gacan fududaa ayaan gacanta aad u qaban xoolaha umada aad uga qaban aan aad uga hayn intaan baa odayga markaanu aragnay bay noqotay in xilka laga qaado markuu odayga qaadka faraha badan ka qaban waayo marka xoogay ka qabtaan raadin inuu ka dhaamayn karana ilaahay baa isna waanu baari doonaa laakiin tan laga hadlayo waa taa weey dhulka ninkaasi wadaadka ay wanaagsan ee fariidka ay ilaahay yaqaanay muumin loo oran jiray xoolaha umadu ka nabad galeysay warqadu qoray waata xoogii dowladda Soomaaliya rasiidda waxaa laga qaaday 2016kii 2017kii waxaa laga qaaday ardiyadii cashuurtii waa laga qaaday halkaa waxaa weeye waa lacag isku direen maayarkii Sakariya markii dhulka uu dalbaday aniga sidoo uu yeelay de isaga ilaahay buu loo ristaagay $1 buu diray maayarkii soo kordhi buu yiri dabeedna soo celiyay kunki dhul la luush laga doonayo way aniga xeerka marka la yiraahdo waxaan ku shaqeeyaa anigu halkaan barsaabka marka dowladda hoose ay qaldanto waxa xaq u leeyahay inaan soo dhex galo maxaa ay soo dhex gelinaya awoodda xageen ka keenay sharciga ay siiyay xeerka 23 la yiraahdo ee soo baxay 2002 amendment lagu sameeyay ee uu saxay madaxweynihii ilaahay raala ka noqday hore daahir riyaal ka ahayn ee uu gudoomiyay baarlamaanka ahaa isna Axmed Aadan Qayde Allah naxariis janaasiye xeerka soo xixeen oo midna baarlamaanku ka soo gudbiyay midna madaxweynuhu uu dhaqan geliyay daahir riyaal ka ahayn wuxuu qodobkiisa 13 golada gobol ahaan siinaya in marka ay isqabsadaan xarafka 13aad markuu ay isqabsadaan dowladaha hoose iyo shacabku bulshada inaanu dhex gallo ayuu siinaya sharcigaas aan siinay anagoo qodobada eegayna waxaan anigii barsaafiyeenkan u yeeray oo isku keenay waxaan ku yiraahdaa naga siidaa oo yiri warqadiisa qor warqad yar oo la difan ma qor way waxaan ka heshiinay waa kayd warqadii baan u qoray xogayaha dowladda hoose barsaafiyeenkan u diray xogayaha gobolka iyo barsaafiyeenkan u diray waxay yiraahdeen dhulkaasi waxba kuma jiraan sharcigan aan eegay waxaan arkay dhulkan inaan dhibaato badan ka hoolin waad aragteen waxa sharci oo dhan dabeedna warqadii yar oo la difan oo walaalnimo ah waan dib badan lahayn ayaan u qoray oo aanan xitaa sheegin dadka gudiyada aan saaran leeyahay gudidii aan u diray markay soo celisay waxaan arkay dhulkaasi in dadkan leeyihiin u fasax anigu u fasax dhulka aniga xaggayga uu ka fasaxan yahay nimanka ha ogo ha dhisteen anu taliya qaybta warqad baan u qori lahaa oran lahaa taliya ninkaas xaq buu leeyahay dhulkiisa u dhisanaya cid la hadli kartana ma leh deemaan oranaya isaga ku celiyay si waxaan doonayay maamul wada shaqeynaya oo walaalaha oo dantii umada gacmaha wada haya inaynu u dhameynay warqadaas laakiin warqadii waxay gaadhay iyadoo baqdin kale ay jirto Saleebaan oo nala qayiray Ramaax oo yimid iyo ay timid oo la sii xilka laga qaadaya ayaa dabeedna waxay timid TV-da la soo istaago la saayo anigu ay tan maayo tuuku maaragtay waxba sheegi maayo boqolaal arrimood baan haynaa madaarkan iminka Boorame dhul badan oo laga sharciyay baan haynaa guriga dowladdu leedahay la sharciyay baan og ordo soo eega haddii la idin rooyahay bacadlihi jiingad baa laga dhex dhisoo la sharciyay haddii kala guurtay cid lacag guranayso aniguna waad ogtiin in lacageed baa lacag raadiyaba ma hi wallahi inaan xafiiskiisa gelin weligii xamaayir ma yahay magaalada bal ordo weydiyo weli xafiiskaaga ma soo galay wada barsaabku weli xafiiskaaga ma soo fariis weligii xafiiskiisa ma gelin mana aqaan meel uu kaga yahay kursigiisa nooc yahay wallahi inaan garanay waxa weeye anigu taas weeye dhul aan jaraya iyo dhul aan bixiyana awoodda sharciguna ima siin oo dhul bixin kari maayo
dhul aan bixiyeyna ma jirto laakiin dacwad nin muwaadin ah oo reer Somaliland uu soo gudbiyay ayaan ogolaaday imika halka waxa ka kacay Suldaan Baade Aamin iyo odayadiisii iyo gabadh waayeel ah oo dulmanayd muddo badan ba ka kacday sidaas la mid ah beriga ay soo dacwootay warqad baan u qoray balse dhulka ama iga soo jawaab baan ku yiri sababta aad u siineen laba warqadood markuu ka soo jawaab waayay ayaan u yeedhay anu halkan uu igu yimi waan saraacday dhulkii baan tagnay wada garanaysan dhulkan malaynaya waxaan ku yiri war dhulkan uu barxan yahay dhulkan waxa weeye wada sidan u soo baxaysa dabeedna mid kala cross garanaysa halkaas oo tii ay ka gelaysaa waxaan ku yiri wadadana ba jaray isla markaa wuxuu leeyahay haddii aan tan ogolaado ilaa kaasa dhaqaaqay wadada waxaan ku yiri war tan iyo tan kala ba jartay halkan waa tii islaantana haday leedahay masaakiinta iska sii markaan ka nimid halkan nimid wuxuu igu yiri ilmo reer kala ku haysta anigu reerka kale iimu sheegay laba waraaqood baan qoray hadduu soo qori lahaa gudoomiye dhulka aad leedahay halo u ogolow qofka muwaadinka waxa ku haysto qof kale muwaadina miyaanu dulminaa de may baan oranaa ila warqadeeda waxaan ku qoray iga soo jawaab sababta dadin ogolaaneen muu yeel markuu igu yiri umad kale aniga markay laba qof isku haystaan shaarkayga imika haddii aad igu qabsataan waxa xaq biileys ku leeyahay inuu dhiibo shaarka dabeedna maxkamad sila tago dabeedna waxaan ku yiri labadii qolood hadda maxkamad taga maxkamaddu ay idin soo garnaqdo ودكتين وجود خلافات أبو حير 17 شيء وجود خلافات في محكمة دي وكالة درت مركب وين حاجة تجان ما يرجو يدو هالك عن كأقبلي إن أرنت رح لجوها يو عن لو قراني لبحيه وحصاق على ورقد دي سفرية دي ورقد بوي سقري وحولي دول خاو حايس كله قلدي عم طبعا كتير ويدي أي عليه حدثين وعرضين قلدي نضيح بكروجين قلدي كله مرميسي دول كود شيء كنيسي قرية قاتل ولا سلاح الحلاي أنا قال لي سو شيء تبين عم كله برسيد داية أنا سكر ولا ما يعني نبتقلي سلحة تذكر حلنا سيد داية نبتقلي درك هنا كارت ما يركب مركي زايد ماذا هره وحنا فصاعد دول كأنك سدح هذا جر وضد يقول شيء السقف فصاعد ده وضد اللي قوين تسوي قوي هل كنا ذلك سان معلومة دوت كان بين بالهم بلا وضد برينا وحباكو قرصونا أيوه رك بدن العقل وتجارة دول بدن بالله حلو ودوين بدن الله حلو waxaan doonayn baa farta afkana laga geliyo wax badan aan doonayn inaan ka hadlo ayaa jira waxa doonayna si fogaado macal cune muuqan doonay Soomaaliya macal cune muuqan doonay ninkii shalay lahaa anigu guri malihi anigu gaari malihi maanta wuxuu leeyahay ideology ya marka anigu guri waan lahaa gaadiidna waan lahaa marka nimanay ninkala guri malihi gaarina malihi teen ma adeeyo isaga weydii maanta wuxuu leeyahay anu hore magaxay waxa suulay soo baadho guri albaatiina taa marka laga tago marka baxdur faafinta waxa ugu fiican ee umada loo soo gud maanta waan ka xisadacnay Facebook wararka qora imika YouTube ka gelinaysan caawo TV lama sugayo in Facebook report wax leeyahay jira baari sameeyay ma adeeyo baara maanta baqaara magaalada ka furanay soo eegay dale tan kale idinka tagay waxa weeye ودكتين مقالن ضيع هايست كدافدي ugu badnayd baa taala company baa jiray markaan imid company-ga haystaan sooyimi maareey baan xil ka qaadnay guddi baan magacaabnay isaan oday uga dhigay kala saar baan ku yiri muddaan u qabtay muddadii oo dhammaan company kala magacaabay anagoo inaanu kala dirnaba doonayna hadii muddada dhabaato waad ogeedeen nabadgelyo darada ka dhici gaadhay gobolka iyo degmada in labadii shirkadood baabuurta la isku eeriyay dhagax la dhacay waan faragelinay annaga ka furdaaminay waanu kala xukunay shirkadii kala qasab baanu kaga dhignay inay shaqeyso maanta tii kale wixii isaga lagu xukumay waxaan u saaray salaadiinta gobolka ugu weyneed baan u saaray odayadii baan u saaray suldaan baada ka mid ahaa suldaan dhawal baa ka mid ahaa salaadiin kala ka mid ahayd nasiib darada milaa maanta jirto waxa weeye isaga xaqiisii wixii ku xidhnaa wax nibay labadii shirkadood tii kale wixii ku xidhnaa roseed aan ku xukunayna way aqbashay taasoo jirta maanta ordo magaalada eega dawladda hoose dhabarkeeda waxa qashin yaala soo eeg ka taga magaalada maalmihii la soo bedelay waxaan arkay dhowr baalo oo solar lights kiya oo magaalada xabad muddo dhaweedaan marayeen mid baa dhacsanaa anu waxaan la yaabanahay qof shaqadiisii qabsan waayay maanta midig ma taal waa la wada jaray ramaac wuxuu la scrap baa loo qaatay anu waan garan waay meel la geeyay maan baarin scrap baa loo gurtay wali ilaahay ku dhaariyay ma in wax soo kordhiyo mooyaane
wax walba saa hoos ugu dhacayaan inuu cid caaya ceeb bay ku ahayd mid la inuu mas'uuliyiintiisa caayaan ceeb bay ku ahayd mid labaad xilkan ilaahay baa dadka keenay xilka laguma haysto beenna laguma haysto falna laguma haysto fariin been maaragtay la dirana laguma hayste xilka waxaa lagu hayaa mas'uuliyad iyo karti baa lagu hayaa annagu iyaga la soo magacaabay 2 bilood baa noo dhimanba tigreeta madaxweyne ku magacaaban maanta waa dawa expire ah iskaga dhowday 2 bilood baa noo magacaaban iyagaaba la soo doorto muddo dhinayd laakiin gobolka lagu haleyn kari maayo degmada lagu haleyn kari maayo ninkaasi waa xaqiiq hadduu shakigii maanta uu rumoobaysaa dowladda hoose cid u shaqaysay u baahan tahay maayar karti leh u baahan tahay maayar maartaqaana aan afgabna ahayn oo agnaan ahayn bay u baahan tahay waxay u baahan tahay cid wax qaban karta waxay u baahan tahay nin isku kalsoon aan shakiyin bay u baahan tahay barasaab baa ku eriyay barasaab anigii warqadda aan baqanayna muxuu ka baqanaya waa la doortay maxaan u eriyay inuu eriskiisa geliyay haddii aanu isagu diyaar u ahayn anuu eriskiisa kuma jirin laakiin mas'uuliyaddu anigu way faraysaa markaan arko inaanu shaqaynayn inaan iraahdo ninkiina lama shaqaynayn laakiin maan caayin shir jarayd maan qabanayn meelaha kamaan hadlayn daceebta inamada kale yiri qoryaan qaadanaynaa xildhibaanada aan waxba oran maayo kulli wada waa gool raaci caruur maxaa la yiri waa loo kala sheekeeyay waana loo kala sheekeeyay haddii waana loo kala sheekeeyay marka arrinta halkaasaan kaga baxay waxaan leeyahay war nimankan muwaadiniin weeye dhulkooda way leeyihiin haddaan ku celinayaa jiingad baa uga dhisnayd dhul cusub maaha waa dhul jiingad baa hore ugu dhisnayd ya dhul cusub aan ugu bixinayo bilaabay maaha sida madaxweynaha loo sheegay sida wasiirka arrimaha gudaha loo sheegay dhul cusub aan ugu bixinayo maaha ixtiraam baan anigu madaxdeedu u hayaa wasiirka arrimaha gudaha ixtiraam baan u hayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ixtiraam baan u hayaa يعني هو دعوت بينا وموجود بيه عدكم مديره وحوي مسؤول كمركب دعوت بينا لوجي حق بولينه في عاد قالوا سؤال يسوي دي يعني لكن تورك اللوجي يعني واتاوي مركا نكى شالي دول كديدنا وادو جيدنا هرب وحلو ديده دول كان سدح قريبة دولة دي بيسي رماح انتو جوي لو قريب ورسل قاضني إلا مدحونا عد والله انت يوم مدحونا حين كديدنا anigu meelna kamaan bixin manaan fasixin ninkii qiyaameeyay saxay un baa tan war beena geeni ninkii qiyaameeyay saxay ayaa tan war beena geeni warawey mas'uuliyadda aan faraysaa way inaan qaran ku shaqeeyno inaan cid u shaqeeyno ma magacaabida li soo magacaabay inaan khabrado oo dadku dulmiyo ma inaan dadku shaqeeyo way madaxweynaha soo magacaabay weligii gulamo tartamay gulamo hadal inaan dad dulmiyo weligii mu fariinaan uma dulmiyo isagaan lagu aqoon dulmiga isagaan lagu aqoon ma taqaana tagrifalka isagaan lagu aqoon cadaalad darada ana imu farin kana yeeli ma mid aniga ka hooseyn umada la dulmo waxaan ku celinayaa xaq bay u leeyihiin arintan wasaaradda arrimaha gudaha soo fargelinaysa بريت ولا وفدي وزير وقامين هنا ويمانيا وإيش كده ما عندهم تاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.